owners equity-ga waxaa weeyaane markii la kala jaray labadaas la kala jaray maxaa kuu soo haray adiga waa wixii adiga aad leedahay shakhsina u leedahay weeyaane kaasi waa balance sheet-ki markii aad diyaarsanayso waan ku soconaynaa haddana waxaan u gudbaynaa slide number 13 ama slide-ka 13aad oo aan ku falaqaynayno waxa loo yaqaano income statement ama profit and loss statement maxaa ku soo galay maxaa kaa baxay maxaa faa'iido ah ama khasaare ah revenues oo ah waxyaalaha markaad iibisay ganacsigaada iibisay aad qortay tusaale ahaan taleefon baad iibisaa taleefonka waxaad ku iibisay $1,000 halkaasayto $1,000 ayaa ku soo gashay micnaheedu ma $1,000 faa'iido ah weeyaane $1,000 baad qabatay $1,000 waxaa laga sii jari doonaa qarashaadka baxay oo ka mid ah shaqaalaha qarashkiisii mushaarkiisii kiradii biyihii qashinkii iyo waxyaalahaas oo kale baa laga yaabaa taasna waa income statement ama waxa loo yaqaano profit and loss statement waa financial statementigaas aad iyo aad iyo aad buu yahay muhiim wuxuu muhiim ugu yahay waa meesha laga duulayo marka aad sanadkii buuxinayso canshuurtaada waa meesha sheegayso inaad khasaartay ama inaad faa'iiday waa meesha sheegayso wixii lagugu canshuuri lahaa iyo intii aad bixin lahayd haddii aadan taas haysan runtii dhibaato ayay noqonaysaa inaad canshuur buuxiso dhibaato kale xataa imaan karta xataa oo ah haddaad deyn raadsanayso haddii xataa aad rabto inaad ganacsiga aad iska iibiso qofka kaa iibsanayo wuxuu ku leeyahay faa'iidadii iyo khasaarihii ku soo gala dhowrka sano isii haddaadan haynin sideen kaaga iibsan karaa aniga ganacsigaada maba ogi waxa ku soo galo waxaan kaa baxo waayo anigu magac kaliya inaan iibsada ma rabo waxaan rabaa ganacsi caafimaad leh oo wax soo saarayo in aan gato taasi waxay ahayd slide number 13 haddana waxaan just dul maraynaa keliya slide number 14 oo ah sidee waa la isku qasaa mararka qaarkood waxa hantida ah iyo waxa expense-ka ah waddankaana sharci baa u degsan oo ah waxa la qarashayn karo iyo waxa laga dhigi karo hanti hantidu waa ama assetka waxaan leeyahay waxaa weeyaane waa waxa kor u qaadayo ganacsiga sida dhulka iyo waxyaalaha kale weeyaane oo ka sanad kor u kacayo qarashka ama expense-kana waxaa weeyaane waxa keliya hoos u dhigaya ganacsiga waxa hal sano ama ka yar ah waa qarash waa in la kala saaraa waxa qarasha ama waxa hanti maguuraana haddii hanti aan soo gatay dee hantidaas hal sano ka badan bay ila joogaysaa oo ganacsigay hoysanayaa saasoo ay tahay waa inaan ku record gareeyaa balance sheet-ka laakiinse haddii aan baxo oo aan gaarigayga taraagga aan wato tusaale camal ahaan aan taayirada dhammaan ka wada bedelo taayiradaasayta waxaa laga yaabaa hal sano inaysan ahaynin soo ma dhihi karo taayiradii waa hanti waana dhahaa taayiradii waa qarash laakiinse haddii aan soo gato trailer weyn oo taraagga jiidayo kaasi qarash ma ahane kaasi waa hanti laga yaabo inuu hayo dhowr sano badankoodna 5 sano ayuu hayaa 5 sano ayuu ku qornaanayaa balance sheet-kanaga slide number 15 ama slide 15aad waxaa weeyaane fahanka ama understanding financial statements sidee loo fahmi karaa financial statementiga tusaale ahaan horta waa maxay financial statement waxaa weeyaane waa record ama statementi la soo diyaariyey oo soo diyaariyey qof khibrad u leh kana soo diyaariyey ganacsiga kana faalloonayo dhammaan waxa uu ganacsiga leeyahay waxa lagu leeyahay waxa asaga u soo haray markii wax kasta uu bixiyo haddii ay faa'iido taalo iyo haddii ay khasaaro taalo weeyaane financial statementiga sidii awalba aanu idhaahday 3 buu u kala baxaa waa balance sheet waa income statement ama waxa loo yaqaano profit and loss iyo cash flow statement weeyaane so taasi anoo ku dheeraanayn waa slide number 15 slide number 16na waa asagii oo tusaale ah ama example ah oo ku tusayo waxa income statement camal u eegyahay ama balance sheet uu eegyahay haddii aad rabto in aad ogaato waxaan hadda waa ka gudbaynaa slide number 17 tan runtii wuxuu quseeyaa ganacsi qarashaad badan leh
oo rabo in uu kala saaro ama waxa loo yaqaano cost allocation. So kaasi runtii wax hadda dadka aan rabo inaan inta kala hadlo quseeya ma ahan, waa ka gudbaynaa. Waxaana u gudbaynaa slide number 17. Slide number 17 waa tusaale oo ah balance sheetkii. Waxaa halkaas ku qoran tusaale ahaan in hantida uu leeyahay ganacsiga ay tahay 1 milyan. Deynta lagu leeyahay deynta iyo waxa uu wada leeyahay ganacsigana ay tahay 500 oo kun. Markii la kaajalaasato hantida saxda ah ee shirkadu leedahayna waa 500 oo kun. Tusaale ahaan baan u soo qaatay. Waxaa weeyaane waa statement of cash flow. Kaasna wuxuu soo bandhigayaa lacagta cashka kuu taalo sida ay kuu soo gasho iyo sida ay u baxdo buu kaasna ka faaloonaya. Badankood ganacsatayaasha yaryar taas xoog ma saaraan, waxay xoogga saaraan income statementiga ama waxa loo yaqaano profit and loss statementiga. Kan labaatanaadna waxa loo yaqaano weeyaan retained earnings. Runtiina dadka aan raba inaan maanta inta kala hadlo wax hadda ayaga quseeyo ma ahan, waana ka boodaynaa kaaseyto. Slide number 20 waa waxa loo yaqaano GAAP ama waxa loo yaqaano generally accepted accounting principles. Waa sharciga ku dhisan xisaabaadka wadankan Mareykanka oo laga isticmaalo dhammaan Mareykan. Xataa waa laga isticmaalaa internationalka, laakiinse ayagana mid gooni ayay leeyihiin. Waxaa weeyaan habraaca ama habdhaqanka ay dadka anoo kala ah oo xisaabiyaasha ah ay raacaan markii ay rabaan in ay diyaariyaan miisaaniyadda ama maaliyadda hay-adaha ama ganacsatayaasha ah. Waa sida xisaabiyaasha ay u record gareeyaan waxyaalaha soo galo ama ka baxo ganacsiga. Waa in ay taas tix raacaan, aysan baal marin. Hadday baal maraana dhibaatooyin weyn ayaa ka imaan karo. Waa in GAAP waxa loo yaqaano waxay xaqiijisaa in macluumaadka ama informationka uu soo bandhigayo hay-addaanayto ama ganacsadaha ay tahay wax fair ah ama sax ah, wax free ah oo ama free from bias ah, iyo wax ah reliable in muxuu ah la aqbali karo, reliable ah. Tusaale ahaan waxyaalaha aan arko markaan canshuuraha buuxinaya waxaa weeyaane waxaad arkaysaa qof ganacsato ah shirkadiisii businesskii oo waxyaalo badan lagala baxayo. Zelle baa ka mida, cash app baa ka mida. Runtii mararka qaarkood waxaad isleedahay sidee aad cash app ugu adeegataa? Maad check qortid, maad kaar marsatid? So waxyaalahaas haddii lagu arko waxaa la dhihi karaa information reliable ma ahan. Slide number 22na waa asagii baan kasii falanqoonaynaa oo aan muxuu ahaa aan ku dheeraanaynaa. Runtii GAAP waa wax ganacsato kasto laga rabo inuu isticmaalo, waxaana u fududayn karo haddii uu la shaqeeyo qof xisaabiye ah ama qof CPA ah oo habraacan yaqaano. Runtiina wuxuu aad ugu fiican yahay ganacsatayaasha yara hadda soo koraya oo laga yaabo inay 500 kun ama 1 milyan oo kala camal revenue-gooda uu gaarayo weeyaane. So slide-ka number 21 iyo 23 iyo 24 iyo 25 dhammaantood waa sharcigii GAAP oo aad aan ugu falanqeeyay slide-ka, laakiinse halkaanayta aan ugu hadlaynin. So adiga ayaan kuu daynayaa in bal aad akhrisato, aadna fahanto, aad ku fahanto luqadda Ingiriiska ah. Haddana waxaan u gudbaynaa slide number 26. Wuxuu ka hadlayaa dejinta ama diyaarinta waxa loo yaqaano accounting system. Waxaan ka soo hadalnay ganacsi baan rabaa inaan furo. Markaan furayo sidee baan u habdhaqan geliyaa? Ma waxaan ka dhigaa sole miyaan ka dhigaa? Ma corporation baan ka dhigaa? Ma LLC baan ka dhigaa? Waxaan kaloo ka hadalnay canshuuraha sidii aad u bixin lahayd. Waxaan kaloo ka hadalnay statementiga la diyaarinayo. Waxaas dhan oo aan ka hadalnay waxaa la rabaa
meel lagu kaydiyo ama meel lagu record gareeyo. haddii aadan waxaas haysan dee wax alla wixii hadda aan ka hadlaynay saacaddii lasoo dhaafo dhan waxba kama jiraan. So hadda waxaan ka hadlaynaa setting up accounting system ama diyaarinta accounting systemka ah. waa maxay accounting system wey su-aasha. waxaa weeyaane waa system loo isticmaalo sidii lagu maareyn lahaa incomeka ku soo galo, expenseka kaa baxo iyo waxyaalaha kale oo businesskaada ee soo galo. dadku isku mid ma ahan ama ganacsatayaasha isku mid ma ahan. dad waxaa jiro jecel inay iska wataan buug uu jeebka ugu jiro oo mar alla markay ka adeeganayaan meel dukaana halkaas ku qoraan ay dhahaan maanta waxaan tagay dukaan hebel, waxaan soo gatay waxaalahaas waxaa iga baxday lacag gaarayso $100 iga baxday. saas buu u qoranayaa hadduu rabo, waa buug buu wataa. dadna waa dad yar fahmay ganacsigaanayto oo soo gato softwareyo sida QuickBookska, FreshBookska, Zoro iyo Soho Books. kaasna waa system laga heli karo website-yada oo aad yeelanayso username iyo password, bishina aad iska bixinayso adiga lacag ilaa $50 ilaa $100. waxaadna ku xiraysaa systemkaasayto accountkaada. halkaas ayaa dhammaan wax alla wixii aad accountkaada marisay ama debit card ha ahaado ama credit card ha ahaado ama check aa qortay ha ahaado, halkaas ayaa laga soo qaadayaa systemkaa la gedinayaa. adiga haddii aad ku fiican tahay maareynta, adiga ayaaba qorsheyn karo ama qof xisaabiya anoo kale ah baa kuu maareyn karo oo lacag ku siin kartaa. qofkaas ayaana kuu diyaarin karo financial statementiga. waxaa halkan ku qoran waxaa la yidhaahdo your memory is not a good accounting system. maskaxday igu jirtaa accounting system ma ahan. you have to have a good accounting system. walaalahay Soomaaliyeed waxaan ku dhahaa mar kasto markay ii yimaadaan, wadankan aan degannahay Mareykanka waa wadan nidaam leh, laakiinse hal wax ogow, wadankaanayto kuma dhisno cadaalad ee wuxuu ku dhisan yahay sharci. cadaalad kuma dhisno, wuxuu ku dhisan yahay sharci. micnaheedu waxaa weeyaane aqoon darri baa ii geysay, lagaama aqbalayo. waa iloobay, lagaama aqbalayo. waa lumiyey, lagaama aqbalayo. waxa keliya laga aqbalaya waxaa weeyaane caddayn cad oo waraaqa, ama rasiid ha ahaado ama boona ha ahaato ama check ha ahaado ama invoice ha ahaado. waxaas keliya ayaa la aqbalayaa. halkaanu igu jiray lama aqbalayo. mar kastana adiga ayaa lagaa rabaa oo ku saaran yahay waajibka in aad caddayso. halkaas wuxuu ahaa slide number 26. slide number 27na waxaa weeyaan waxaa loo yaqaano managing accounting system ama maareynta accounting systemka. saan awal buu yidhaahday you can do it yourself if you have a basic training of accounting. adiga ayaa suubsan karo haddii aad haysato khibrad xagga xisaabaadka ah. haddii aadan aqoonna dee qof anoo kale ah ama qof adiga aad shaqaalaysiisay baa runtii kuu maareyn karo. waxaad subin kartaa qof professional ah ayaad haargaraysan kartaa. dadku waa kala duwan yihiin. waxaa jiro bookkeeper baa jiro, dad annaga yara khibradahaan naga hooseeyaa jiro oo just kuu subin waxa loo yaqaano daily entry. dadkaasna lacag baa la siiyaa. waxaa laga yaabaa $100 ama $200 inay bishii kaa qaataan oo in ay kuu subiyaan daily entry. laakiin ka digtoono qofkaas kuu subinayo daily entryga sharci ama aqoon uma lahan in uu ku matalo haddii ay noqoto IRS-ta, haddii ay noqoto dowladda hoose ee revenue departmentiga ah oo waxyaa laga bahay. qofkaasayto qof ku matali kara ma ahan, waayo uma lahan khibradii uu kugu matali lahaa. saa ula soco. midda kale qofka kuu diyaarinaya canshuurta xataa qof ku matali kara ma ahan marka qaarkood, waayo tax preparer waa tax preparer, laakiin xisaabiye ma ahan. dadka ku matali karo badankood markay dhibaato ku soo gaarto ama ay kaaga timaado xagga IRS-ta audit ah, ama ay hadda aniga gobolka waxaan ku sugnahay Washington ay kaaga timaado DOR-ka ama waxa loo yaqaano Department of Revenue loo yaqaano. qofka ku matali karo waa qof aniga oo kale ah ama abukaate sharciga yaqaano u degsanaa gobolka iyo wadanka. so waxaan ku leeyahay ka digtoonow qofka aad rabto in uu adiga ku matalo.
haddana waxaan u gudbaynaa slide number 28. Kanna waxaan ku fasiraynaa dangers of not having accounting system. Dhibaatooyinka waaweyn ay leedahay in aadan haysan accounting system. Mar kasto adiga ayaa laaga baahan yahay in aad cadeymaha lagugu haysto aad keento. The burden of supplying information is indeed on the taxpayer. Adiga ayaa laga rabaa, hantiilaha iskala ganacsiga baa laga rabaa cadeynta. Mas-uuliyadda adiga ayay ku saaran tahay, wax alla wixii aad soo qortay aad soo bandhigtay. Dadkaygana waxaan ku dhahaa, fadlan waxa aad qorayso ama aad soo bandhigayso ha ahaadaan lacalla hadhow haddii lagu qabsado wax aad caddayn u keeni karto. Haddii xataa caddaynta aada keeni karina wax caqli gala oo macquula oo maskaxda ilaahay ku siiyey aqbali karto keen baan dadkayga ku dhahaa. Waa in aad haysataa rikooryo fiican caddaynayo qarashkaada adiga kaa baxay. Waxaana ka mid ah rasiidyada, jeegii bangiga maray, biilashii aad ku bixisay iyo xataa bank statementigaada weeyaane. Haddana waxaan u gudbayaa slide number 29. Runtii in waxaan rabaa meeshaan aan ku dheeraado wax yar. Waxaan ugu dheeraanayaa waxaa weeye dhibaatooyin weyn bay ganacsatayaasha Soomaalida ka qabaan halkaanayto. Runtiina aad baan aniga Cabdiwali ahaan uga naxaa markay ii imaadaan, waayo dad waxaa mar ii yimaado lagu suubiyey baaritaan ay ku suubisay waaxda dowladda shaqaalaha. Anaga gobolkanaga waxaa loo yaqaanaa LNI baa loo yaqaanaa ama Labor and Industry baa loo yaqaanaa. Marka qaarkoodna IRS-tana way soo gashaa. Waxaa ka mid ah qofka shaqaalaha ah laakiinse lacagta aan lagu siinin asaga oo aan shaqaale ahayn, sida loo yaqaano contractor ama loo yaqaano 1099 lacagta ah. Waa in aad fahanto faraqa u dhaxeeyo shaqaale iyo contractor, inaad fahanta weeyaane. State agencies-ka sida annaga gobolkanaga Illinois iyo IRS-ta, shaqaalaha si kala gooniya ayay labada dowlad u kala fasiraan. Adiga ayaana lagaa rabaa in aad fahanto fasiraadda gobolkaada iyo fasiraadda IRS-ta. Confused? Seek professional guidance. Raadso qof kaa khibrad badan oo kuu fasiri karo oo ku dhihi karo qofkan waa shaqaale, waxaa waajib ku ah in canshuur ka jarto, adna aad ku darto taadi, ama qofkan ma ahan shaqaale waa contractor saa ku sii. Tusaale ahaan markay noqoto xagga federaalka, canshuuraadka uu ganacsiga bixiyo oo loo yaqaano payroll tax loo yaqaano, ganacsigu waa in uu fiiriyaa relationshipka u dhaxeeyo asaga iyo qofka shaqaalaha ah. Tusaale ahaan, hadda aniga Cabdiwali ah ganacsi baan leeyahay, waxaa ii joogto secretary. Secretary-ga sayto aniga ayaa maamulo. Subaxii waqtigaas ayay soo gashaa, waqtigaas ayay ka baxdaa. Waxaan u qoondeeyey saacaddii in aan siiyo lacag halahaasa. Markii subaxii ay soo gasho, waxaa laga yaabaa in taleefanadana soo wacay, fariimahana loo duubay, in ay qorto, qaar ay ku celiso, qaar aniga ay ii keento. Waxaa laga yaabaa inay baxdo, musqusha soo nadiifiso, dhulka xaaqdo, diyaariso, printerka qadda ka dhammaatay ay geliso, email-adeeda qaar ay baarto. Qofka waxaas dhan qabanayo waa qof aniga aan maamulayo, waa qof aniga aan eri shaqadaas ayaan kuu cilaamiyey ee qabo. Qofkaas waa shaqaale. Waa in lacagta aan siiyey canshuurta asaga kuwa waajibka waa inaan ka jaraa. Anigana tii iga rabay oo maadaama asaga aan shaqaalay inaan ku daro. Markaan ku darana 3 bil ama bishii aan lacagtaas oo guud aan u cesho, dowladda u cesho. Ama eedan ha ahaato ama ha ahaato muxuu ahaa waxa loo yaqaano unemployment ama social security ama Medicare ha ahaato, waan taa celiyaa. Waxyaalaha kale oo kamid ah waxaa weeyaane dadkanaga ka ganacsado xanaanada ilmaha.
waxaa laga yaabaa in qof aad shaqaalaysay xaruntii uu yimaaday qofkiina aad tiraahday waxaan kuu qorayaa 89. taasi runtii sax ma ahan, waa qalad, kana digtoonow. sababtan kuu leeyahay waxaa weeyaane qofkaas adiga ayaa maamulo, adigu kuu shaqeeyaa, adaa lagaa rabaa in uu canshuurta aad ka jarto, adna aad ku darto, adna aad ka bixiso. qofka hadduu kuu yimaado uu ku dhaho ma rabo, fadlan ganacsigaada ayuu halis ku yahay, aniga waxaan kuga talinayaa in qofkaas aada shaqaalaysiinin. sababaan kuu sheegaya qiso yar oo ku dhacday qof ganacsado ah oo dadkan guryaha lagu haya ah. qof baa u shaqeynayo saasoo kale ah, qofkiibaa kufay, qofkiibaa jabay. qofkaas kufay oo jabay lacag waxaa la siin jiray kaasha. markii la siiyey qofkii dee qof shaqeynaya ma ahan, lacagtuu qaadan jiray ayaa ka istaagtay. qofkii ganacsadaha ahaa muusan istahaynin, qofkan wuu baxayaa, wuxuu tegayaa isbitaal, wuxuu susinaya. qofkii asagii oo runtii ka fakeray inuu dhib u keena qofkaas buu wuxuu yidhaahday jugtan shaqada igu soo gaartay. kabacdi waxaa la diiwaan geliyey elnaydi baa la diiwaan geliyey. elnaydi baa timid, waxay ku tiraahday noo soo bandhig bayjeegyaashii aad qofkan si jirtay, inta saaca uu shaqeeyey, intii aad siisay, canshuurtii aad bixisay. waa caddayn waayeen. kolleyba aniga idinma sheegaya lacagtii lagu soo rogay, lacag badan oo ganaaxa baa lagu soo rogay. haddana waxaa sugayso mid kale oo xagga IRS-ta, waayo mararka qaarkood wasaaradaha way xiriiraan. haddii inta dhib ka jirto kaas ayuu u sheegayaa. halkaas qofkaas waxaa kugu furnaan karto 2 dacwadood. so walaalayaal ka digtoonaada markii aad qof kuu shaqeeyo aad rabto in aad ka dhigato 1099. waxaa la yidhi ninaan kuu digin kuma dilin baa la yidhi. halkaan walaalayaashay unbaa aniga taas uga digayaa. waadna fiirin kartaa slide number 30 oo ah dangerous of paying employees cash no payroll. kolleyba mararka qaarkood dowladaha waxay dhihi karaan waxaan waa fraud, even though kaasi uu adag yahay si lagu caddeeyo. so slide number 30 baan kusoo koobayaa. slide number 30 iyo 31 waa dangerous of paying employees cash on payroll. waxaan kusoo koobayaa ama kusoo dhammaynayaa slide number 32 oo ah advice from a CPA, tala ka imaanayso CPA-ga. haddii runtii aad fiiriso slidekan waxaa ku qoran keep track of money related activities for individual or business. what kinds of money oo ah related activitieska: cashka aad hesho, cash received, cashka aad bixiso, cash paid out, saleska aad bixiso, aad iibiso, waxa aad soo gadato, iyo waxyaalaha kale oo qarashaadka ah. so waxaan leeyahay in barnaamijkan runtii aad ka faa'iidaysatay, anigana aan kuu faa'iideeyey, walaalkay Soomaaliyeed ee ganacsadaha ah ee ku nool waddankaaneeto. waayo wax aad tabcanaysay dhiidkaadii iyo maalkaadii iyo dhiiggaadii aad gelisay, in wax yar oo adiga aad sixi karto oo aad hagaajin karto inaad ku lumiso, runtii waa dhibaato weyn. mana fiicno in la fududaysto sharciga iyo nidaamka u degsan waddankan Maraykanka ah. waayo mar kasta aniga waxaan jeclahay dadkayga Soomaaliyeed in meesha ay joogeen maanta meel ka sarreysa ay joogto. markii dadka ila macaamilo ay imaadaan oo aan arko lacag badan inay sanadkan suubiyeen, ayaga way yara niyad jabaan, waxay dhahaan canshuur badan baan bixinaya. anna waan farxaa, waxaan ku farxaa meeshii uu shalay joogay meel ka fiican buu joogaa. waayo haddii sanadkii hore saa camal ahaan uu 500,000 uu suubiyey oo aan eri 20,000 celi, maantana uu 1 milyan ii keenay oo aan eri 40,000 celi, wuxuu suubiyey 500,000 wuxuu suubiyey dheeraada. laakiinse 500,000 kaaseyto waxaa ka baxayso lacag dheeraada oo ah 20,000 oo dheeraada canshuura. so waxaan dhahaa haniyajabin walaal, canshuurtu waa waajib, waxay waajib ku tahay muwaadin kasto meel kasta uu joogo. hasaan leeyahay
sidii awalba aan idinkugu soo bandhigay ciwaanka aad igala xiriiri kartaan waa www.abdiwali.com. telefonkiina halkaas aad ka heli kartaa. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.